أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. صدق الله العظيم. الحمد لله الذي حمد في الكتاب نفسه واستفتح بالحمد كتابه واستخلص الحمد لنفسه وجعل الحمد دليلا على طاعته ورضي بالحمد شكرا له من خلقه. نحمده ونشكره ونصلي ونسلم على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا وبعد. انت أكذب ولا ليال وهذه وذا السلام يا كلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلهي وحن كبرينا إنه نقدقوا اجتماع يكون مباركة طيبة. إلهي الرالي كيهي انت إسوتي مدنا إلهي سبحانه وتعالى كرر لنقضه ذنوب تودنا ودافو موعودك يبلغت غيبك هنا نأركيننا الله نوذ الشيء كل جن. موضوعا سورة كسابسا يو تأملات كذا يو إن لقى فكره يتدبر كآياتها أنت أنا جود قلين وحاول كان الشيخ عبد الرحمن وبرنامج كنودا دهيني وحسوسيي قبل ولا شيء أو زوج كذا موت الفجأة وكيمد أو ما قرنا إشاءات تيران يسن أيو يري إن أماركتي لو دعيو يذن إن إله قلبي هذا وسقو تاسع وحان إير كورن لها بابك صبرك وحد أوقاتا ولا لي أذيقو هي دمان ولا لها مغلي ودمبا دارتن الدنيا ذا الليلة waxaa loo abuuray oo ilaahayba uu sameeyay inay kabad iyo nakad iyo mashaqo iyo mashaakil iyo masaa'ib noqoto meesha nabadgelyada iyo raaxada iyo barwaaqada aan kala go'aynin nolosha aan geerida lahayn dhalinyarada gabowga lahayn caafimaadkan cudurka lahayn weligeed naciim iyo barwaaqo lagu jirayo weliga aadan maqlaynin hebel baa dhintay iyo hebel baa ka dhintay midna waa tan dambe waa daarta dambe weeye tan ma aha. tan waa inaad ku tala gashaa waad maqlaysaa qof kastoo jeceshahay haddii uu ka hormaro wuu dhintay hebel waad maqlaysaa adigana way soo gaari doontaa oo doorka uu ku soo gaari doonaa hebel wuu dhintay waad maqlaysaa. waxaa qudwo inoo ah adigana qudwo ku ah oo tilmaan iyo tusaale ku ah Sulaym radiyallahu anha oo zawjadii nabiga Sulaym oo ahayd Anas ibn Malik
hooyadii ahayd ummu salama ay zawjada nabiga ahayd ummu sulaymin saxaabiye jaliila ay ahayd anas ibn malik hooyadii bay ahayd isaga ka sheekeynaya hooyadii buu ka sheekeynaya waxa markaa qabay abu talha radiyallahu anhu fi sabiilillah baa loo baxay abu talha nabigu raacay wiilay dhashay oo wiilkiisa isagana ah oo buku ka tagay qisada waad wada garanaysaan walaakiin waa tadkiir iyo xusuusin iyo munaasabada walaasheen geerida xanuunka badan ay qabsatay baan u soo qaatay abu talha markii ay soo noqdeen oo jihaadkii laga soo noqday habeenkii gurigiisa ku soo hoyanayay maalinimada magaalada ay soo galeen ummu sulaymin waxay tiri horta wiilkii baa dhintay habeenkii wiilkii baa dhintay bukay ummu sulaym waxay kala dardaarantay haweenkii xaafada oo dhan waxay tiri abu talha yaan loo sheegin ilmihiisa dhintay aniga ka hor ana u sheegay sheegidii u sheegaysay arin cajiib lay noqotay horta guri geeri kamay dhigeen guri aroos bay ka dhigtay oo guriga waa qurxisay waa hagaajisay iyadina waa isqurxisay oo aroosad bay iska dhigtay oo sidii lagu yaqiinay qof dumar oo ninkeedii ka maqnaa waa isqurxisay waliba wuxuu oranayaa tasannacat akthara mimma tasannacu min qablu sida isu qurxisay waligeed si ay isu qurxin bay isu qurxisay meesha waxa yaalana waa maydkaasina qariib ma ahe waa ilmaheedii waa fildatu kabidiha waa gabal yaroo beerkeeda kamida meeshan yaalo oo mayd ah gurigiina way qurxisay iyadana way isqurxisay abu talha markuu soo galay gurigiisii waxa la yidhi muuna ka shakinin in wax walba ay tamaam yihiin ilan wax dhibaamuuna aragba ka bacdina cashadii bay u soo dhigtay cashadiisii buu iska cunay su'aalan buu weydiiyey wuxuu yidhi wiilkaygii bukay ka warrama waxay tiri wiilkaagii huwa askanu maa yakuun hadduu ugu deganaansho badan yahay iyadoo run bay sheegtay isaguna si kale u fahmay runtay sheegtay waa maxay dee qof dhintay iyo qof nool waxaa deganaansho badan kan dhintay isaguna wuxuu u fahmay waa fiican yahay oo waa caafimaaday buu u qaatay cuntadiisii cashadiisii buu iska cunay sidii markii dambe ahaan jirtay caadadu ahaydna dee xaaskiisii buu la kulmay hawshii markii uu dhammaystay ayay waxay ku tiri radiyallahu anha abu talha iyadii baa la hadlaysa hadda waa qof dumara waxa dhintayna waa ilmaheedii abu talha ka waran haddii reer kale ay wax caariyeeyaan wax siiyaan waxbay caariyeeyeen waxbay weel bay ka qaateen oo qoladii wixii la caariyeeyay ama weelkii lahayd qoladii lahayd baa dib igu soo celiya tiri oo dalabtay ma loo diiri karaa maya looma diiri karo iyagaaba iska leh haddaba waxay tiri wiilkeennii adigana wiilkaaga ahana wiilkayga ahaa yaa lahaa ilaahay baa lahaa soo ma aha ilaahay lahaa baa qaatay cariyuu nagu ahaa ilaahay baa qaatay faxtasib ibnak isagii tegi ajirkiisa tirso oo yuusan ajirkiisii ku dhaafin waa xanaaqay baa la yidhi oo wuxuu yidhi taraktinii xataa idaa taladaqtu wa iska kaydaysay ilaa aan wax ka qasay kadib baad ii sheegaysaa miyaa wiilkaygi olodo waxay tiri iska dhaaf waxaasoo ilmaha soo aasa waa qof dumara waxa dhintayna waa ilmaheedii maxaa u geeyay inay arrintaas samayso shaki waxaan ku jirin inayna ka ahayn wax maadi ah ama xayawaani ah ama shahwa ah ama nin raqbadiisa ah ee waxay rabtaa waxaan ay afka ka sheeganayso ridaha ilaahay ah ilaahay oo raalli baan ka ahay waxaad samaysay oo ficla inay tusto ilaahay subxaanahu wa tacaala inay xusniiso inay murugooto inay oydo ilin ka timaado looma diidin walaakin ilaahay bay rabtaa inay tusto muntaha ridaha meeshii ugu dambaysay inay gaadhay oo falkan iyo ficilkan iyo qadarkan ilaahay ay raalli ku tahay bay rabtaa inaad rabbiga tusto abu talha markuu nabiga arrinta uga sheekeeyey radiyallahu anhu nabigu uu ku farxay qisadaas waana uu u duceeyey acarastum alleyla xalay aroos ma samayseen haa buu yidhi baaraka allahu fii laylatikuma allah idiin barakeeyo ilaahay waa barakeeyo wiil baa ilaahay caloosheedii ku guntay habeenkii barakaysan mar alla markii ay dhashayna anas ibn malik bay waxay ku tiri anasow walaalkaa qaad oo nabiga u gee wallahi inaan calooshiisa aysan gelaynin
candhuufta iyo dhacaanka nebiga ka hor markaas in yaroo timir bay u dhiibtay nebiga calayhi salaatu wasalaam baa loo geeyey dhabtiisuu saaray timirtii ilaa ilmaha yar wax ma cuni karee ayuu nebigu u calaanjiyey ama ahaa oo maaragtay dhacaankii candhuuftii nebiga oo leh ayuu taxniig wax la yidhaah sunnatu taxniig ayuu dhan xalagu ugu dhajiyey ilmihii markaasuu muudmuudsaday wixii ugu horreeyey candhuuftii nebiga moxamed ee barakaysnayd sala allahu calayh wasalam ayay ahayd ee ilmihii calooshiisa gala wiil barakaysan buu noqday 9 wiil oo kaasi uu dhalay wiilkaa uu dhalay ayaan arkay buu yidhi ninkii raawiga ahaa oo kulligood qad qara'u qur'aanka aqriyey yani qur'aanka xifdiyey qur'aanka xifdigiisu wax weyn buu agtooda ka ahaa wuxuu la mid yahay zamankan oday ku faanoo yidhi 9 wiil oo wada doctoraan dhalay ama 9 wiil oo injineeraan leeyahay oo kale buu la mid yahay zamankaas siduu u dhigmay yani waxaan uga jeedaa walaasheen ha sabirto cid alla ciddii inaga mid ah oo geeri xanuun badan ay ku timaadana ha ogaado meeshan inay sidaas ay tahay xalkeedu waxaa laga rabaa inaad aad u sabirto oo aad maaragtay ilaahayna uga raalli noqoto ikhwaani hadalkaygii qayb badan ba halkaasuu ku tegey suuratu lmu'minuun waa suurad magaceeduba cajiib leeyahay oo suuratu lmu'minuun bilow cajiib lay ku bilaabatay ilaahay wuxuu subxaanahu watacaala tilmaamay liibaan yaa liibaanay qad aflaxa almu'minuun mafhuum bay leedahay oo mu'miniinta waxaan ahayn ma aysan aflaxin ma liibaanin waxaa la wixii liibaan lagu sheegayo oo dhan ama kula muuqda inay liibaan yihiin wax la cadcadeeyey iyo wax la madoobeeyey iyo wax la qurxiyey iyo wax adduunya la taxayba kulligood liibaan ma aha waxaa liibaanay mu'min baa liibaanay mu'miniintaas sifadoodu ilaahay ka sheekeeyey kumuuna darin inay lacag leeyihiin kumuuna darin aghniyaa oo maalqabeen weeye muusan odhanin guryo badan iyo gabdho badan iyo xaasas badan iyo baabuur badan bay leeyihiin midna kuma ilaahay ma sheegin ilaahay sifooyin uu jecel yahay buu tilmaamay sifooyinka uu jecel yahay ayaa nala gudban kulligeen inaanu iska baarno oo nin walba uu baaro inta uu ka haysto sifo walba inta uu kaga sifoobay maxaad ka haysaa sifooyinka ilaahay uu jecel yahay uu tilmaamay oo uu sheegay in ay liibaaneen iyagu mafhuumkuna uu yahay inta kale ka soo hadhay inaysan liibaanin waa inaad si baadhaa ilaahay muxuu yidhi marka subxaana watacaala markuu sifaynayey awal sifa min sifaati uu ilaahay jecel yahay horta waa iimaan waqad aflaxa almu'minuun sifatu liimaan baa laga helay allah bay rumaysan yihiin rasuulkiisay rumaysan yihiin rususha ilaahay oo dhan bay rumeeyeen aakhiray rumaysan yihiin kutubta ilaahay bay rumaysan yihiin haybiyaadka waxaa la yidhaha ee aan la arkaynin ee ilaahay subxaanahu watacaala uu ku farad yeelay in la rumeeyo arkaan aliimaan oo dhan bay rumaysan yihiin mu'miniinna weeye saadiqiin awal asifaat sifooyin kalea ilaahay u tilmaamay sifooyinkaa kale ilaahay u tilmaamay wuxuu ka bilaabay salaada aladiina hum fii salaatihim khaashicuun الذين هم كوي أو في صلاتهم خاشعون صلاة ذو خشوع سنا يعني صلاة مركي تكنيان خاشعين بآية أو خشوع بيلاهيان خشوع ومحي وأمر قلبي وقلبي وذا حاضرة إلهي بي سبحانه وتعالى هرتاقيهن عظم ذي إلهي وإنانتي يا قلبي وذا كل عيا طبعا صلاة دي مركي استاقان بين يدي الله خشوعي قلبك يا عظمتي إلهي وينين يا يرانتي ويرى إلى وديرتها دول كان أتكتها أنت أنتد أضو أنتد كلا أكتها أضو أما أنتد أتكجوكتها دول كان كلوين أدي كلوين وحبا معها مركي لو بربردقو ملكوت كإلهي سبحانه وتعالى عالم الأفلاك كاسر يحدقها النجومته وبا كل حلوم يابا iyaguna badnaasho waxay leeyihiin qaruuraxa iyo jayga dhulka in ka badan ba hadana waxa soo idinoo la isku daray markii la isku wada daro faraanti meel cid lagu turay noqonayaan hadii samada loo barbar dhigo samadan soke tan labaad saas ay u tahay tan labaad tan saddexaad saas ay u tahay samaawaadka oo idil markii la isku wada daro carshiga ilaahay hadii loo barbar dhigo faraanti ama kaatun meel cid lagu tuuray ayay noqonayaan carshiga ilaahay weynaantiisa inta leeg
ومن أعظم مخلوق من مخلوقات الله وإلهي مجدي وإلهي عظمي وتعظيمي ومخلوق إلهي بابوري سبحانه جل جلاله رب العرش العظيم بعد مركه هرتاغ انتهي صلاته وكلنا إلهي لكل ما يسوي أيان دردا إن آدم هيشتا أني أدعو أن نكمل نهاي وحوي إلهي ويناه يا ملك الملوك يا ذو الجلال والإكرام يا أيا فسح كو فسحي كو أقلاد إن أدلك كلنتو مركز هذا كلن كيسي هذا قدرينين وذا قيمينين وإعادة كل نقطي ودخل سكالك عن نقطي بينما هدي لقوه يري لها مانتا نين مدحوين أدلك كل ميسا أما بقرب أدلك كل ميسا لقوه أوران لها بلنتها إساقها أدباد وإلالين لهيد واد إسكو قرحين لهيد واد شغاجين لهيد واد ديارسان لهيد إنان سؤاشا aad ula hortagayso ayna ka kala baahin meel baad ku sii qoran lahayd ninka hortagayso waa ninka magaalada ugu sareeya ama wadanka ugu sareeya ama boqor ama amiir ama ra'iis ama madaxweyne wuxuu doonaa noqdo waxa waa ku urursanaan lahaayeen ballantaasi waqti kasta ay tahay ma aadan ka garab marteen waa iman lahayd hadii la yiraahdo saqda dhexe habeenimo 12 habeenimo ama ba 1 habeenimo ama labada habeenimo ayaa lagu helay kaalay diyaar baad u noqon lahayd maxaa yeelay waxa kugu dhameystiran makhluuqan aad hor istaagan tahay ama aad hor tagayso inuu xaajadaada ku gudayo in hawshaadu ay ku hargelayso in fadhiga aad la yeelatay arintaadu ay ku buuxsamayso maalin dhaweyd oo aan fogeyn toddobaad miyaan ka soo wareegay ayaan xafiis soo galay beesha qadareen joogo xafiiska waxaan ugu socday nin baan u shafaaca qaadayay oo aan rabay ninka madaxda inaan kala hadlo marka yarkii meesha u fadhiyay ninka sekreteerka u ahaa ayaan salaamay waxaan ninkan u socdaa una yaqaana kan marka yarkan sekreteerka garan maayo ninkan aan u socdaa waana i garanaya oo hadduu magacayga maqla asagaaba ii imanaya waxaan rabaa inaan waxay oran jirteen reer xamarka inaan ku harawsado waxoogay ma garanaysa aan isu sheego ninka wuu yaqaanaa isagoo ima garanaya kan almuhim waa yahay buu yidhi insha allah wuu mashquulsan yahay bal markuu mashquul ka noqdo aan arki doonaa waa isu soo banbaxnay marka waxaan idhi inaan dacwada ka faa'iido waxaan salaada ka waran cibaadadaada ka waran شيء جود الأشياء بعد إلهي كورن قيام الليل كورن أنا بتسأل لك علي هذا الكلام نوكاني وحنا هدي له إلى وزيرك الرمها جودها اللي مش وزارة الرمها جودها هي عاوة كدونية أو لبيه تومك هذا النمو ما تقلق هذا والله ما تقلق هدي له إلى أمير كودنك وقدر أمير كذا هي وقتك للقومة هي لبده هذا النمو كدونية ما تقلق ها والله وتقلق أبدا شيخو مركي شيخ ما حد يكون كان قصة ذا سكع قصة أي شيء وحجري سفر بانها تعليم بان وحنو جري بويري ما شاء الله وأنا أسكري أو أن كترسن عندما ماذا ما أسكرت شرطة بوليسك أو جوازات كيو محلنا مigration كشقية تعليم بان وحنو جري بويري مصر امتحان بان تعليم أو امتحان كون بوتاقا ما هنا قدر بكبرتها أنا امتحان كي مالين تا أتجيب بيري وبريت امتحان كي وياها أنقل لها إن سنة كاسور لن كسر تلاقي أيا بلن أن كقب سدي وزير كارمها جودها أيا تلفون يقول صور داعي وحال لي بلنتي أتسوي شيء وبريته تضبطها يا برد أرور نمدي بالجدون يا هل كان ماشى الجدون وقدر ماشى وجوجنا ومصر وقت قال إلى سو حلينا وقالين كي دم بقى مالين تأكل رئيسي أدونك بقى لو رجول شاء الله شيء يالو بلن تام باجين كرو برينا امتحان بان ليه هاي وحنقول كو قال يقولي إن الامتحان كاس كجوجي بلن تاسع قال مهم سر ديارة هذه ديارة مركي أن وحن هلا يقولي فرست جلاس أو العقبة اللي قات صور عيب لبيه تومك هبين نمو أيام كسر دقيق ولا قدر أرورتي تضبطي يا بركنا موعدك يا بلنتي والله ما سيحن بيقولين ليش ما كيني بلنت هذا الشيء يلوي انتهي يدنت عن كلاه
iska soo jeeday buu yiri salaadii subax markaan tukaday anoo sideedii u soo jeeda ayaan 7 bar ma suginay markiiba waan ka lahuuyay meeshii dadkii waan sii tagay saa 20 baa iga horeysa ana raqam 21 baan noqday buu yiri sidii marba mid ugu galayay markii 21 la soo gaaray 20kii markay dhamaadeen ayuu wasiirkii wuxuu yiri waa daalanahay wixii hadda ka dambeeyay hal iska hoydo anigana wuxuu yiri diyaaradda aan ku imid hal imtixaan inuu idhaafo ma ku tala galay galabtiina mid kale ay booking garaysan oo inaan berrito uusan imtixaanka ii dhaafin waa adkaysan waayay ninkii marka sekreteerka uu haay madaxda ahaa baan isku duubay wuxuu yiri warniyo aniga xaalkayga aan kaaga warramo anu saasaan ahaa imtixaan baan berrito lahaa maalinta la ila soo hadlay waan baajiyay imtixaankii haddana galabta diyaarad baan leeyahay ma anfacayso sidan si uu iigal marka waxoogay uu ii naxay adigu wuxuu yiri sidii baa igu galiyay ninkii wasiirkii fadhigiina waa yeeshay mawcidkii ballantiina alxamdulilah galabtiina waan dhoofay waxaan arrintaad u socotay ma kugu hirgashay hawa ii hirgashay buu yiri oo waxaan rabay buu yiri garabku saa u taabtay hal xidig baan rabay buu yiri xidigtiina waa helay xidig baan rabo xidigtiina waan helay anigu dee cibra ii noqotay oo waxay ii noqotay waana ii noqotay isaguna wuxuu ii cadeeyay booska uu ka taagan yahay ballanta bani aadan makhluuq ah oo miskiina markaasaan dib ugu soo noqdo waxaan leeyahay kani waa wasiir ee kan ka sareeyay ee amiirka ah ama boqorka ah wadanka dhan waa makhluuq baahan oo inuu cunto cuno iyo inuu cabid cabo iyo inuu haddii cunto uu cuno inuu musqul uu galo oo umuurtiisa u sahlanaato ilaahay buu u baahan yahay inuu seexdo allah buu u baahan yahay inuu soo kaco ilaahay buu u baahan yahay isaga muxtaajaho faqiira ballantiisa saasay kula weyntahay fakayfa birabbil aalamiina maliki almuluki dil jalali wal ikram boqorada oo dhan boqorkoodii ka waran inaad marka kacdo oo habeenkii kacdo oo la kulanto kulan majaanana oo waxba laga rabin oo dan cid kuugu aad kuugu abal gudayso ama aad leedahay uu ii sahlay ilaahay baa ku siiyay laakiin maxaa naga maqan yaqiintii baa naga maqan basharkan makhluuqa ah in arrintaada xaajadaada uu ku guday waa ognahay laakiin xaajadaada in ilaahay ku guday wallaahi meel xun baan taaganahay waxaad arkaysaa nin baa bukoonaya ama qof baa bukoonaya waxaa lagu leeyahay meel kastaa la soo maray ilaahay baa noo haray oo ilaahay muxuu kugu haray oo ilaahay maxaad uga dhigaysa oo kan ugu dambeeya maxaad ilaahay uga dhigtay leesh limaada jacalta allaha aakhiran arrin baa kugu imanaysa kur baa kula soo gudboonaanaysa ما إلهي كبلودي أنت هذا الهبل كبلابن وذا الهبل وسقي ميهذا نوجين إن إلهي سبحانه وتعالى وكعافين كرو هدات بكتو عذر رد إلهي إن يسميهين هرجب أو شيء بسيطة إن كستو هذا هرجب حماضي ولا سوشك شيء هرجب وشيء بسيطة هي كنسل عذر رد هذا لو تاجلا يهي إلهي يكتشوا يسميهين إلهي هو يسوق مت وحبذ رميسنتهي الله رب العالمين إن أو قف دنتي نولين يه مقف بكو عافين واي إلهي هو عافين إلهي الشفاء عنده سهل لكن أذيك يقين هذه با وسخك شيء قلبك يبان نقوض البكاء سيدا أصدرت يدبع مركان ربك ينهرتها قلنا هيبان سوقك آذينا مالك لك شحينا إلهي مركدتك ليبانتا وقامي وقرري خشوع بكوت المامي يحضرون قلبهم رب العالمين إن هرتاجيهم بأوجيهن حاجة ذودن كان هيا أي هرتاجيهن إلهي إسكو سفيي إسكو تلمامي دتك استصي أي وربك الغني ذو الرحمة وربك الغني ذو الرحمة إن يشاء يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء وربك ربك الغني ذو الرحمة نحريس بدل نحريس صاحبه أبين شيخ علي سوفي وحورين جري آياتها مركز تو قريبا مرنا مول قفي جري وربك الغني ذو الرحمة ويستاق جري وحورين جري اللهم أنت الغني ذو الرحمة ونحن الفقراء ذو الحاجات الغني ذو الرحمة ذو تاعي أنا ونوحنا هي فقراء ذي حاجوين كلها مساكين تابانون
إخواني صلاة إنكم خشوعنا لقب الله بصلاة صوص عتاء ظهر كأها واحد يسكت إذا إني صلاة هاجي كرة يكدوناتو إن إلهي إن ظهر تاجن تاجوجاتو إن هذا سجل الله خطاب يسوع إياك وكاف الخطاب إياك أذيك أمبانو نعبد كعبدينا وإياك نستعين أذيك أمبانو كالميسنينا بعد الأورانيسا سجاد بريسا نهدنا الصراط المستقيم فأتحدى مركز أغرينا يسوع إن أتجرتو كان الله خطاب يسوع الله الله يسوع وكما ساسات خاشع كل نقونيسا صلاة هذا كده ذلنا خشوع يالته وحكلوا إلهي وكسر في يدك ونكسن والذين هم عن اللغو معرضون زمن اللغو بانو كجرا إلهي وحكوت المام يدك ونكسن هذه اللي باني إني لغو يردنا يكتجين أما اللغو حمود كان وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه شرك وحنو دم بس وقليه أما اللغو كان ما لا يعني وحما فائدين إن ما أنت نقوة فربتي قرية يقوله سكوس وقليه فيسبوك يو انستغرام يو أنا بمحوك لها بلا يدن كله فربضن بلا معناها بس هو ذا قالوا دت كون وناكسن إلهي وحكوت المامي إني اللغو يسجد سدان ووقت جوذا ملفي عن الجليان والذين هم عن اللغو معرضون بل صفة إنه سكبرناه قف ولبو إنك مذا إنتي نولشيسة لغوي إنتي جاد وهو حقيقة لو أبو ريئة بل تانا هاي سكبار قف والبا والذين هم للزكاة فاعلون نودي وزكدي بإلهي وكت المامي أو مانع الخير معها زكدي ويفليان إلهي وكفر ديالي بل وزيادين يان وصدقة ذي بتسنيان والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين إلهي آياتنا لبدا آياتنا وحكوت المامي يتنكدم بيس فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون غريزة إلهي بني آدم كوكو أبوري شهوذا ويسدح قليي رقي ضمر حد با إلهي وسمي حد كاكو ودافع معها حد كاسي كسميهين wax alla waxa keenaya in xuduuda ilaahay ay gudbaan oo ay ugu soo kayso an-nadra sahmun min sihami ibliis wa ki xadiidka waha bay ka dhowrsoonayaan oo iska ilaalinayaan marka sifadaas ayuu ilaahay ku sifeeyay dadka wanaagsan waxa kale oo ilaahay ku sifeeyay inay amaanadooda iyo ballanta ay ilaaliyaan wuxuu ilaahay ku khatimay hadana inay salawaadkooda ay ilaaliyaan oo ay muxaafidiin ala salawaati ay yihiin haddaan anigu u fiirsaday ta'ammulaadka iyo tadabburaadka quraanka waxaan arkay meel kaste oo ilaahay al-insaan uu xuso al-insaan lafdh al-insaan al-insaan waxa weeye waa jinsigan insiga leeyahay insaanka leeyahay weeyaan waa ism jinsi lil'umum insaan hadii leeyahay meel kasto laqad khalaqna al-insaana oo kale meel kasto quraanka aan u fiirsaday laba shay uu ka hadlaa ilaahay markuu insaanka uu sheego mar xaqiiqadiisu ka warama iyo bilowgiisa iyo sida lagu abuuray marna macaayibtiisu sheega iyo cuyubta uu leeyahay insaanku sheega meel badan ilaahay markuu insaanka tilmaamayo waxyaalaha dhaliishiisu ilaahay tilmaama la yasamu al-insanu min du'aa'i al-khayr wa in massahu ash-sharru faya'usun qanut وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين إلهي وحو كاستثنو ذي وكريبي إنسانك يا معايبتيسا يا عيبهيسا كوا كصفوا بصفاتك أو إلهي جعلها سورة المعارج إن الإنسان خلق هلوعا الهلع إلهي بفسر تفسير كلامه مبهنا إذا مسه الشر جزوعا شر مركي وكل عي مصيبة كل عضو وجزعه صبر ما يوي وهذا ركتين وهذا قال قارب بيسدي لي يبا مصيبة مركي كل عضو ويسدي لي يبا وجزع وي وإذا مسه الخير خير مركي أصيبه خير وهلنا ومنوع بخيل بنقنيا إلا المصلين قوة كذا موي
لكن واكوه الذين هم على صلاتهم دائمون صلاة دود أي دائم تاهي ديمومة الصلاة ما هدي سفريهين هدي حضريهين هدي بكان هدي عافمات قبان هدي مشغول سيهين هدي فراقيهين هدي فرح سيهين هدي مرقي سيهين مرنا بصلاتك تجي معايا في كل الأحوال صلاة دود دائم لولك هدي جوغان ديارد هدي ساريهين دياردنا كنت كذا ديارد هذا فوشو صلاة هكتجي وأنا ماشي هو أنا سنة كوبة كلها هيدا ومعاصي يريده إلهي يقول ويد بوي مركز صلاة تكو وهذا يكون سورته ودو إن تاجني كتو مستقبل القبلة فافعل سمع ديارها قاربة وين وما لا فسح عليه كوا حنحنو ديارها قاركو سيدا هذا تنقدريه وكلا نوي جيرانو يو ديارد يسكو انت بيكون دي يعني هنا هيستاجن هكيل اسكا استاج ما هذا استاج كرتو على يا مرة إنه نيوزل إني ما لها سو أن يو تضبية 8 ساعة ديارنا لا سعوتي تضبية 8 ساعة وفلت نن استوبة وحيقول تلا قالين ما دام ما لا لسكيش يستاجو وأيوه أي معركة خمري وحكوا عبان هذا الربانو أيكون فاجف هذا أنا حكوا إن صلاة دي هتكن ولا إن هذا ذكية لمالش هاي صلاة دي فرد كتوكو لكن هذا خمر عبي سام شكيني استاج ولي بين استاجتها في عم بكليه سفر كادير أو جيش لكن صلاتها استاجن هكيل صلاة استاج مستقبل القبلة وليبا وديارده هو يكون شيء يعني قبلة دي حاجة شكاجرته وتوكو إلهي وخوج علىنا يا سبحانه جل جلاله هذه أي كفر سوي ذو أما صلاة ديارده أي ضيقتها وعريري تهي كرسي هذا كتوكو لكن اسكت دي أنت هراء تكبيرة الإحرام كعلى الأقل يفاتح هذا إن استاج أتكون أخرسته قيامك يعني ركن القيام ركوع دي سجودي مركا نقطه هذا دون تمركا اسكفريسو وهدي لكن مرنا بصلاة حاجة تجين ولي بمشي أسوق صلاة مرنا بحاجة تجين حي لي واحد سارنتها هي طيرك مشمبرتها إلى هي وهيوه سبحانه وتعالى ما يمسكهن إلا الله ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون أنا شخصيا قناعتي قناعة إذا عندنا قصب مايو آيات داس ديار ذا هي تلماميش آيات داس محي تلماميش ديار ذا تلماميش ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله وقت بان هدي جرين مويه أرنتها وحنوقا عينا ويدي شيء لا مركلا إن شاء الله أن يكون شيكين إذا كشيكين دون هدي الليلة مركز صلاة دودو ودائم الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم وزكري والذين يصدقون بيوم الدين وصفة التصديق الدائمة دائم التصديق ليوم القيامة يوم القيامة يكون كإلهي مرنا بقلبي وذا كمرا مايو في كل الأوقات وحي حسوسيهن قيامي بحسوسيهن إن إلهي هرتيا بحسوسيهن إلهي سفكلوا دبردقيو والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون الله نسيه سفداس وصف عجائب له إلهي وحكوت المامي ددك وناكسن إلهي وكسفي إن إنسان كمعايبتي سيكبد بعدين إن يهينكوا عذابك إلهي كبقية محيي عذابك إلهي آمن موهلق ما آمن نقضا كرو يا أها أولياء الله الصالحين الأنبياء والأصفياء نبينا ياك خير بنا لا أحد أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم من البشر ومع ذلك سجادتك وتقوى بنا صلاة هدو قالوا صدري سي لابتيسا جوح سيد دري كركريا لقى مغلي جري أزيز كأزيز المرجل من الخوف من الله عز وجل نار جهنم هديه النبي ومغلى عليه الصلاة والسلام حالت با كم وقنجرتي قفك أركيه وإسليه محوكم بقى النبي محمد ونار قالوا صلوات الله وسلامه عليه وكان يخاف النار سيدي أبو بكر الصديق رضي الله عنه وادتك إلهي كان خير بدن بعد الأنبياء وحوها رجل أسيف بيتي مركي تلمامش عائشة رضي الله عنها إذا صلى بالناس دتك هدو مركا نبي أبو كوضي نبي مركو أبو بكر أمر دتك هتجيه عائشة وحيت يا رسول الله أبو بكر وأن قلبي جلع سنو صلاة هدو قالوا وهنت درت هذا يوصندتك أين قرآن كيس أين مغلين عمر يعدك لا أدر نبي وادي يدو حيل أبو بكر باتجينية كان هكذا بكاء رضي الله عنه سيدنا عمر بن الخطاب وحليني لبدي سدان
labadiisa dhaban waxaa ahaa khad duleeshamay min kasrati albukaa'i oo hintiisii badnayd ayaa ilintii ka socotay baa jeexatay baa lagu leeyahay sayidina cumar radia allahu canhu sayidina cumar oo nebigu imise bishaaro oo bishaaraadka khaaska waxaa ka mid ah wuxuu yidhi jannadaan galo qasri qurux badan baan arkay oo gabar qurux badan ay hortaaganto markaan is idhi yaa leh qasrigan aan weydiiyeyna waxaa ligu yidhi nin oo ummadaada anigaaba ahay moxamede maya cumar ibnkhadaab baa leh markaasaan damcay buu yidhi inaan guriga gudihiisa galo qasrigo waxaan xusuustay khiiradaada iyo masayrkaaga in reerkaaga lagu dabamaro aadan jeclayno markaasaan iska daayey cumar waa ooyey radia allahu canhu wuxuu yidhi calayka uqaaru yaa rasuula allah ma adigan kaa qiiroon lahaa isagoo intaasoo dhan og radia allahu canhu oo bishaaraadka aan la kala goynaynin ayaa haddana markuu sii dhimanayey khawf uu ka qabo cadaabu ullahi caza wajalla waad la socotaan waad maqasheen xudayfa uu yeeray radia allahu canhu oo sirta nebiga hayey oo magacyada munaafiqiinta si gaara uu nebigu ugu sheegay wuxuu yidhi xudayfow waa kana sakaraatulmowtkii baan ahay wax kale kuma weydiisanayee magacayga ma ku daray nebiga qolooyinka munaafiqiinta ani magacayga ma ku jiraa xudayfana aad bay ugu adkayd sirta nebiga inuu faafiyo in badan buu aamusay markii dambe wuxuu yidhi sayidii cumar ibnkhadaab kuma jirtid magacaa kuma jirtid munaafiqiinta cid kalena sirta nebiga uu sheegi maayo waa fii sakrati lmowt intaasoo bishaaro u haysta yaa laytanii buu odhan jiray baa layidhi ma laysa lii walaa calaya waxaan khayraadkan iyo ummadda iyo futuuxaadka iyo islaamiga iyo yani aalaafka islaamka soo galay waxaasoo idil meel inta la iska dhigo maan ka dhex baxa oo aana waxbana ku yeelanin waxbana la ii raacanin kaanuu yakhaafuuna alcadaab saasay saxaabada radia allahu canhum ay ahaayeen daa'ima tasdiiqi ay ahaayeen waxaa lanooga baahanya marka ikhwaani hadalkayga waa iska soo gabagabaynayaa sifaadkaa wan wanaagsan ee ilaahay liibaanta uu ku tilmaamay ee macaayib alinsaaniya uu ilaahay kaga soocay waxaa keliya waa tan keliya aynu ku gaadhayno safwat alkhalqi inaanu noqonno oo bahamiya iyo xayawaananimada aan ka tagno ee bani aadamka uu ilaahay ku abuuray tiinadiisa cajiinu tiini dhoobadii laga abuuray bay ku abuuran tahay macaayibtaas inuu bakhiil noqdo inuu jabaan noqdo inuu ma garanaysa anaani uu noqdo inuu jazic uu noqdo sifaadka xunxun oo idil dhoobadiisa ayay ku cajiinan tahay waxaa kaliya oo kaa saari kara sifaadka ilaahay jecel yahay inaad ku sifowdo oo aad iska baadho tii aad heshayna waa alxamdu lilah inta kaa maqanna inaad ilaahay barido inuu ku siiyo laakiin waxaa lagaa doonayaa juhdi iyo dadaal warkayga waa soo gabagabeeyey waana soo dhammeeyey waxaanse dardaaran idinka tegayaa naftayda iyo dadka walaalaha ee maqlaya rag iyo dumarba meel kastoo joogtaanba ogaada diinta ilaahay mas-uul baad ka tihiin addacwa ila allahi waatabliigu lidiin illaahi diinta ilaahay inaad dadka gaarsiisaan rasuul kale soo diri maayo rasuushii nebi moxamed baa ugu dambeeyey caqiidadeenna samiimka ah waxaa ka mid ah inaad rumayso nebi moxamed nebi ka dambeeyaa inuusan jirin ma rumaysannaha mise maya haddaad aragta nin samadaa lalaya oo bilaaba yani iska duulaya oo yili nebi baan ahay ma ka yeeli lahayd waa maya dhulkii cirka hadduu isku soo duumaya xataa ka yeeli maysid aakhiru alambiyaai nabigeenna waa calayhi salaatu wasalaam wakhaatima annabiyiina ilaahay baa yidhi inaad arrintaa aad caqiidaysan tahay waxaa ka ratibmaysa inaad adigu mas-uula diin aad tahay diinta ilaahay inaad dadka gaarsiiso rag iyo dumarba arrintaasna waa u siman yihiin mashriqan wa maqriban baa lagaa doonayaa jabaan cid kale sugi mayso baabuur bay iyada kuu keentay adigu diinta ilaahay gee new zealand aakhira dunyaa annagoo marmarayna oo majmuucaa saa u soconna qolo waxaa xaggaa ku nool la yidhaah muuro baa la yidhaha haddaana khaldin muuro baa la yidhaha qabaa'il almuuro waa rag dhaadheer indhahooduna waxoogay waa indha yar yihiin waa sida hunuudda maraykanka joogi jirtay ee caddaanku meesha ka eryaday oo kale ayaa halkanna caddaankii baa yimid oo ka eryaday dhowr boqoloo sano ka hor bir kuwa ka mid oo wataniyiin weeye diin bilaa diin weeye ayaana arkay dharkeennuu jeclaaday waa noo yimid waana salaamay maxaad tihiin muslimiin dharkiinaan jeclaaday buu yidhi adigu maxaa tahay oo anigu reerkanaan ahay reer muuro oo waddankanoo maxaad rumaysan tahay oo arrin yaabluu yeelo wuxuu yidhi annagu haddaanu qabiilka muuraha la yidhaah aanu nahay waa tashannay
horta waxaa jirta buu yidhi isagaa sharax noo bixinaya waxaa jira buu yidhi 4 ilaah baa adduunka jira buu yidhi 4 ilaah ilaah waa ilaaha annagana abuuray buu yidhi qabiilkeenna muuru hal ilaah baan leenahay buu ilaahna waa kuwa shiinaha yaryar ee gaagaabanaya maaragtay abuuray kaasna hal ilaah bay leeyihiin caddaanka iyo ingiriiskana ilaah kale leeyihiin inta ka soo hadhow idinka ka mid tihiin hal ilaah baa idinku farayaraysto idin sameeyay marka 4taa ilaah baa adduunyada isku dirayo wax dagaal dhacaya iyaga sabab uu abuu yiri oo maaragtay dadkii jugta isku haya marka qabiilkeenni qaraar baan gaarno waxaan 4 ilaah baan iska dayno oo bilaahi ilaahan iska noolaano yarkii ii tarjumayay markuu ii dhameeyay waxaan ku idhi waxaad ku tiraa waad khaldan tahay waliba ha u qarinina waad khaldan tahay oo ku yiri wuxuu yiri ninkan wuxuu ku leeyahay you are wrong waad khaldan tahay ninka waa yaabay waxaan idhi waxaad ku khaldan tahay تعدد الصانع مصنوعي لا يدل على تعدد الصانع وقت قواد ما ذميع حاشي طيب وحويري وقتها وحويري إلى هذا أفربتين لأن بني آدم كيف أكل الدون قاربا دير قاربا قابا قارن نير قارن دواوين وحان شركة تويوتو وميت كليل baabuur waaweyn bay sameeysaa kuwa yar yar bay sameeysaa kuwa indha yar yar bay sameeysaa kuwa indha waaweyn bay sameeysaa laakiin waa mid kaliya shirkadaas sawir ma aha marka waxaan horta hal ilaah baa jira laakiin dadka wuxuu u kala duway si uu sanxadiisa uu ku tuso kuwa madow kuwa cadaan kuwa indha yar yar kuwa indha waaweyn arrintii buu ku qancay sax weeye buu yiri sax marka waxaan horta hal ilaah weeye 4 ilaah ma jiraan mid kala jirtaan dadkan Soomaalidan xagee ka yimaadeen Soomaaliya maxaa idin keenay halkan 25 saacadood oo diyaarada maxay u soo fuuleen ka idin ku yimaadeen taqriiban meelaha qaar kood 25 saacadood bay gaaraysaa maxay idin ku yimaadeen wuxuu yiri shan problem baa wadankoodii ka dhacay problemka wuxuu ka dhacay baan yiri laba istagaashay haday 4 ahaan lahayn ka waran laba nin laba jib laba qabiil ama laba dawladood baa istagaalay waxaan 4 ilaa haday ahaan lahaayeen dadka isku may direen iyaga isburburin lahaa mid dhulku la go'ay lahaa mid qorraxdu burburin lahaa marka adduunka dhanba waa burburi lahaa waa runta buu anu taa jabkay kama keenay waa quraankii law kana fiihima alihatun illa allah la fasadata wariya dhamaantii ninkii waan ku heshiinay inuu hal ilaah jiro la ilaaha illa allah buu ku dhawaaqay ninkii la ilaaha illa allah buu yiri nabi maxamed baan rabaa inaan ka dhaadhacsiyo waxaan nin baa middle east bay dhahaano halka ilaahay noo soo diray maadaama ilaahay uu weyn yahay oo kulligeen uu sanala wada hadlin nin buu noo soo diray noo xil saaray maxamed baa leeyahay adiguna kiina uu ogolaaday adigu wariya dhamaantii ninkii meeshii buu ku ashhaatay ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadar rasuulullah masaajidkii buu sida noogu raacay in sha Allah waxaan rajaynaynaa inuu muslim noqdo waliba si wanaagsan islaamkiisa waxaan idinka doonaynaa marka mashriqan wa maghriban inaad diinta ilaahay geysaan ma aha Soomaali inay u qaxday inay yaani cunto iyo cabid iyo nabadgelyo say doonteen ay sheegayaan ka helaan waxa ka weyn waxa iyagu idinka baahan yihiin ee diinta ilaahay faafiya Allah yuwaffiqna wa iyaakum lima yuhibbu wa yarda xamdiya xaashi unug sideed bari ka hor ka dhintay loo duceeyo ilaahay subhanahu wa ta'ala hawda midhaafo wiilkaas dhintay xamdiya ay dhashay gabadha walaasheena geerida ku timidna ilaahay subhanahu wa ta'ala zawjkeeda Allah u naxariisto وجنة الله جيو يدنا سبر إيمان قلبي هذا الله كبوحيو دمان أنت مراد كأن مراد بانو لنا هاي مد والبقف والمراد كيس الله سيو مراد كيسو إله رالك يا الله سيو إلهي هنقدر كو أنفعه وهذا الإلهي كو انتفاعه ودت كان سيجار سيا ودعاة إلى الله وإلى رسول الله النقضة الله يوفقنا وإياكم لما يحب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته